doortayo saadadiya inay beelmuusayin bugayay ku taal allow magaceena dheeraaday dhidibka yeel salaadinta salaam baan idin sidaa boqoradiyo baridaan idin wadaa ducaan balballaadhi daayinay aqbalo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxaa ka hadlaya nuur dhimbiil dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dhagahooga uu ku dhici doono dhawaaqaygu iyo inta aan meesha u soo fadhiisto had iyo goor oo ah danta beeshayda oo dunida dacaladeeda guda iyo dibadba aan jecelahay inaan warkayga gaarsiiyo kuna gaarsiiyo alfa leyl waleyl kun habeen iyo habeen wixii ka adkaada waa aakhiro kale. maanta waxaan jecelahay inaan ka hadlo carsaanyabadeed. carsaanyabadeed waa xayawaan ku nool badda xeeligeeda. carsaanyabadeedu meesha ay ka cararayso way ku carartaa, waxay ka roorayso way ku roortaa. waa carsaanyabadeedu. bal haddaba ninkii xeebaha in badan saaxil soo joogay baa wax ka garan kara arrinta tane. carsaanyabadeedu guuxa badda mawjadaha cartamaya marka ay maqasho waxay carsaanyabadeedu tiraahdaa adduunyadii lagu kala guur bay tiraahdaa, waxba ma hadhine caga wax ka day. afarta bayna jiho intay u roorto ayuunbay haddana waxay u carartaa meeshii ay mawjaduhu ka soo godoomayeenoo mawjad xiimaysunbaa intay cagaha dhulka uga qaado ayuunbay baddii ku celisaa. markaasuba waxaad arkaysaa carsaanyabadeedu iyada oo cagabidhyeynaysa badda dhexdeeda. balse waxaan anigu leeyahay maanta reer sheekh muuse ha noqonina carsaanyabadeed. iyadaa damacda inay cararto meeshii ka cararaysay u carartaa, roor bay damcdaye meeshii ka rooraysa bay u roortaaye war carsaanyabadeed ha noqonina. waa koow. baddu maxay tahay? waa caalamkii. mawjaduhu maxay yihiin? waa magacan mashaqada ee gabooye ee korkiinna saa loogula meeraysanayo gabooyeda lahayo. carsaanyabadeedu maxay tahay? waa qof caqlila. waayo qofku caqli hadduu leey wuxuu ka roorayo kuma rooro, wuxuu diidayo ma doono. war haddaad u dhegaysta wixii damqaaya meesha diriirteedu taallo kuma dareero. hadda aad u dhegaysta warkayga. war 3 masalo baan maanta ku siinayaa, digniinteedana lahow. war reer sheekh muuse gabooye ayaa gaajo lagaga baxayaa ee aan qaadanno. qofka qalbigiisu ama maskaxdiisa geliyo gaajo karoor ma tihiide geerashkeedii baad nagu wadaaye war nagadaa gabayaha noo horseedina. ninka reer sheekh muuse oo caqligiisu keenayo caqli xumaan baa ku haysee war gaajo geerashkeed hamna gelinine nagadaa gaajona raba hortiisa. ninka intuu meel ii soo fadhiisto odhanaya gabooye waa taxaaluf, waa wada jir. oo dadkaad wada jiraysaan ee reer somalilan yaa idinkala geynaya. ummadda soomaaliyeed yaa idiin kala dhexeeya. af oo laysku afgarto. bila'aadamku hal baad ka tihiin. yaa idiin dhexeeya aan ilaahay ahayn qof kale maya. taxaaluf buu gabooye noqonayaa
adeer bal dheri soo qaad dherigaa wax ku kari bariiska dhistida hoosteeda ayuu ku hadhaa shaah kari caleen ku shub caleentu killiga hoostiisay ku hadhaa 30 sannadood gabooyii wuxuu ku hadhay reer Sheekh Muuse ku hadhay cid kaloo uu ku hadhay ma jirin astaanna wuxuu u noqday in ilmaheennii markaan nidhaahno waryaa tahay inuuna yidhahdo gabooyi awowgiisoo maydh ku aasan Sheekh Muuse la yidhaahdo qaar baan maanta ilaa hadda garanayno haddaad iminka xataa imikada laftigeeda waa balila soo baaray waxaan sheegayo qaar baa xitaa iminka maanta gabooyi ka horkeni waa ilmaheennii war taxaaluf abtirsiintaada lagagama tago abtirsiintaadii muusaa lagu yidhaahdaaye war muuse ku mitid magacaan magacaaga ahaynna ilaah baa kugu cadaabayee isir lama doorsho ab lama maydho uskag baa la maydhaa war abtirsiintiinna ha hallaynina taxaalufna cid dadka idinkala geysay oo gaashaanbur ha isku noqonina idin tidhi garanba maayo anu midhkaa taxaalufkaad raadinaysaanna iyo waxaad raadinaysaanna anu ma garanayo waa kow qodobka saddexaadan raba inaan halkan reer Sheekh Muuse idinka caddeeyo geyiga reer Somaliland garoomaad ku yeelani gunnimo xambaaro gabooyaane hay ku soo meel mar kursigaasi ku dangiigso barhooy lowlaa dafcu llaah linnaas bacdahum libacd لفسدت الأرض فسبحان رب العرش العظيم والأدومضة إلهي قولب قولو كتاغا مقعاقو تاكسينها كن نقضتك بعض القوضة موسوح كرادي نربك كل شيء موسور وح كرادي آد كويدو إلهي حقي سوبر حبتا waxaan maanta kuu joojiyey arsaanya badeed aan kuu iri war waxaad ka dagaalamayso iyo waxaad u dagaalamayso haddaad kala garan weydo oo waxaad ka dagaalamaysay aad u duddo doqoniimatii ugu weyneyn reer Sheekh Muuse. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.